anigu waxa weeye waxaan isiri wanaagii waxa aad adeegsatay xaqii warbaahinta marka isbedelkaygu waxaan culays ka saaray inaan wax ku bedelo warbaahinta inaan wax ku hagaajiyo warbaahinta marka runtii damac siyaasadeed yani marxaladan aan joogo runtii ugu jiro baan ku sheegay wallahi fursado badan baan helay aan awoodi karayo inaan meelo kala duwan inaan xil ka qabto xaqiiqatan nabadgelyada naxariista iyo barakooyinkiisu ha idin ahaadeen kuna soo dhawaada barnaamij kooban oo aanu ku waraysan doono wariye Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo ku caanbaxay barnaamijka samafalka ee kaalmay kuwan haddaba ugu horeyn waa kuma Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon bismillaahir rahmaanir rahiim waad ma satahay dhamaantiin inta daawanaysan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon ayaa magacayga la yiraahdaa waxaan ahay reebro waxaan ahay muslim waxaan ka hawlgalaa warbaahinta waxaan isku dayaa inaan iftiimiyo arrimo aanu arko inay u baahan tahay in la iftiimiyo Cabdimaalik waxa uu ka hadlay booqashada uu ugu jooga dalka Qatar iyo soo dhaweynta uu kala kulmay Soomaalida ku dhaqan runtii waxaan u imi Soomaali yani kama had sheeganaysa Qatar ku nool nolol karaama leh cizi iyo sharaf leh cunaya dhaxalkii awooyaashood Soomaalida halkan joogtay muru'ada iyo sharafta lahayd iyo karaamada lahayd sifooyinka wanaagsan lahayd dhaxalkii Soomaali maanta isticmaalaysa ayaan u imi iyaguna isku dayay inay ilaaliyaan dhaxalkaas marka waxa weeye runtii waxa weeye dadka Soomaalida halkan jooga yani runtii wax cabasha iyo dhibaato kuma arag waxay ay sheegeen inay joogan dhulkoodii inay dalkoodii ay joogan insha Allah waxa weeye adduunyadu waa sagaale insha Allah Ilaahay waxa weeye wixii ka dhimana yani ha u dhameystiro waliba yani runtii dalkan Qatar waxa weeye dal la go'doomiyay Soomaaliduna runtii waxay u muujisay inay garabkooda yihiin runtii waxa weeye qof kasta oo xor ah caalamka jooga ma jecla in ummad meel lagu go'doomiyo xaqiiqatan iyagoo go'doon kale ayay dalkii uu jiraa uu shaqeynaya yani noloshiisuna way socotaa Soomaalida halkan joogta Axmed waxa weeye si wacan bay noo soo dhaweeyeen gobanimo la bay noo soo dhaweeyeen runtii waxa weeye qaybaha kala duwan ee bulshada halkan joogta aad bay u shaqeeyaan laakiin bal inta marba jaaniska haysata ayaanu la kulanaa oo aanu isweydaarsanaa u waranaa yani noo warama waqti fiican ma runtii ku qaadanayna Qatar waxyaabaha runtii aan arkay waxa weeye waxay xasuusiyeen dhulkayga bay xasuusiyeen waxaana dhulkayga runtii qoladan iyaga laftooda horumar bay walaaladay Qatar ay ku talaabsanayaan waxaan la jeclaaday horumarka inuu dhulkayga ka socdo dhulkayga xasuusanaya in inuu horumaro waxaan dareemayaa dhulkaygii inay macdan badan shidaal badan saliid badan ay ku aasan tahay oo ay tahay inaynu soo saarano aqoon u barano aynu la soo baxno si ay dadku ay uga baxaan qurba tagista iyo kadeedka iyo nolol badan oo ay Soomaalidu ay cabanaysay oo ay lahayd waxa weeye ilaa iyo goorma ayaan ku jireynaa oo aynu imtixaamanahay yani waxa weeye Ilaahay aynu soo noqono insha Allah khayraadka uu inaga arsaaqaya dhulkeena intii uu waday barnaamijka kaalmee kuwan waxa uu bulshada u soo bandhigay oo la gacan qabtay dad dan yar ah oo duruufo kala duwan ay haysteen haddaba maxaa kamid ah qisooyinkii murugada iyo xasuusta ku reebay waxa weeye runtii qisooyin badan baa jira aad bay u badnaayeen runtii intooda badan waxa weeye dareen bay lahaayeen xaqiiqatan dad ilmeynayaan la kulanay yani kameradeedu waxay qabatay markii hore dad aan si caadi ah si aan u wada sheekaysanay ilmeynaya oo ka ilmeysiinaya ku murugo galnay tiraanya ku galinaya waxaan baranay runtii waxyaabaha runtii dad u sameeya xanuuno badan oo adag xanuunka kasarka dad shirkooda googaayaan oo daadanayaan arkayno hooyo imika geeriyotay Ilaahay ha u naxariistay cibaadada Daawud shiray loo jiray oo tiibalafood oo ku dhacaysa filayo jidkeeda isku laalaamay
iminka sanadii dheeraad bay sii mootan tahay ilaahay u naxariisto hooyadaasi waxay ahayd qisooyinkii runtii ku cibro qaadashada ahaa ee aan muxuu ahaa la kulannay may calfan dhaqaale badan oo muxuu ahaa loo ururiyey caafimaad islahaa muxuu ahaa ku hesho laakiin waa la dhaxlay ilaahay u naxariisto hooyadaas waxaa kaloo aan muxuu ahaa xasuustaa ayaan nuur axmed oo inan guri ku jirtay reer burca oo muxuu ahaa xanuunka HIV gu hayay oo duruufaysneed oo aan haysan kiradii guriga laakiin kadib way ilmeynaysay intaanan kadib gelin way ilmeynaysay way murugaysnayd way warwarsanayd kadibna ilaahay waxa weeye albaabadii khayrka ayuu u furay way badhaadhay iyadii baa guriga iibsatay iyadii baa maxaa nolosheedu hagaagtay iyadii baa dadkii tolkeeda iyo ehelkeeda muxuu ahaa dib u caawisay runtii waxa weeye dad badan baa muxuu ahaa geeriyooday qisaskiina soo maray dad ilmeynaya dad abaaraysan dad masaakiin oo runtii aan miyada ugu tagnay ay way badnaayeen xaqiiqatan muxuu ahaa axmedow waxaa jira dalal ku yaalla dhul saxaraa haddana isku hawlay inay dhulkooda ku beeraan dhir kuna daryeelaan taasi oo qayb ka ah bilicda deegaanka halka dalkeenna oo ka mid ah meelaha ugu cimilada wanaagsan dunida ay dadkiisu dhirtii oo alle ku manaystay gubayaan sidee u arkaa arrintaasi cabdimaalik coldoon wallaahi runtii waxay u baahan tahay deegaanka in la ilaaliyo waxay u baahan tahay runtii dadku hadday qurbaha soo mari lahaayeen oo ay qurbaha arki lahaayeen waxa weeye dalkooda jeclaan lahayn xaqiiqatan waxaad ogaanaysaa nicamka yaalla dhulkeennii inaanu dalal badan oolin xaqiiqatan waxyaabo badan baynu haysanaa xeebo dhaadheer baynu haysanaa waxaynu haysanaa xoolaynu haysanaa dhul ku habboon beerahaynu haysanaa macdan badan baa ku duugan dhulkii khayraadkaasoo oo dawladuhu hani ku noqdaan ayaynu haysanaa dawla haniyaynu nahay salaaxatan yacni dhulka soomaalidu waxa weeye waa ard haniya waa ard hodana marka waxa weeye dhulkaas in loo fakero sidii maxaa loo horumarin lahaa loo soo jeesto yacni salaaxatan waxa weeye way ku dambaynaysaa dhulkeenna ayay ku dambaynaysaa aakhirkii muxuu ahaayey carab iyo cajamba ay iman doonaan oo ay khayraadka inala wadaagi doonaan oo ay u soo shaqo tegi doonaan saynu maanta aynu ula joogno aynu u soo shaqo tagin waxa weeye runtii waxaynu haysanaa saad sheegtay yani bii'ad deegaan la garaacayo la ololinayo la baabi'inayo oo lala dagaalamayo duurjoogtiiyo muxuuha la iib geynayo dhirtii oo yani aan loo naxariisanan dhirtii qoyanayd oo la gubayo oo xaaluf keenayo oo ay meeshii saxaroobayso uu tasaxur ku dhacayo runtii waxaasoo dhan waxa weeye wuu sii baabiinaya xaqiiqatan anigoo yar waxaan xasuustaa yani muddo dheer miyiga marka la ii saaro kaymaa jiri jiray dhul cajaa'ibaa jiri jiray aan imika waayay isla deegaamadii baan tegey meeshiiyo saxare noqotay oo meel aan la harsado oo aan fiicnayn jirin waxaan anigu garanayaa yaraantii meel jiqa oo aya oo kaymaa oo yaab leh oo imika filmaanta ku aragno kaymaa yani muxuu ahaayey qaar khatar istiwaa meelaha uu maro kale ayaa ahaan jiray dhulkeenna ahaan jiray imika wixii way isbedeleen marka waxaan leenahay war dhulkan u tudha waad aragtaan waxa weeye dadkani muxuu ahaayey waxa weeye yani say ka dhigeen dhulkoodii waxay ka faa'iidaysanayaan bii'addu iyadoo aanay arrimo badan oo aynu muxuu ahaayey runtii innagu aynu ku fiicannahay ay jirto haddana dhulkoodii bay ka faa'iidaysanayaan dhulkoodii bay beerayaan yani ay ka dhigayaan meel ku habboon beeraha bilic bay soo saarayaan goob loo soo dalxiiso ayay ka dhigayaan soomaalidu waa dad ku wanaagsan martisoorka iyo soo dhoweynta cabdimaalik waxa uu booqasho ku tegay magaalooyin kala duwan muxuu bulshada kala kulmaa mase jiraa qorshe ku aadan inuu booqdo goobo kale soomaalida waxaan ugu tegay soomaali isjecel kalgacayl ka dhaxeeyo walaaltinimo ka dhaxayso runtii waxa weeye dadkan la kulmay yani waxa weeye dad walaalaa runtii soomaalidu meel kasta ay joogtana waxa weeye way iska xigaan way ka duwan yihiin runtii caalamka way ka duwan yihiin baad soconaysaaba sababtoo waxa weeye dadkii adduunku imika isuma naxariistaan qof kastaaba nafsi yani waxa weeye naadeerka iyo ilmaabtiyo habarwadaagiyo waxaan inagu ma ka sheekayna cid isugu joojisaa ma jirto inagu laakiin waxa weeye naadeer shanaad naadeer lixaad tobnaad reer hebel baynu isku nahay isku deeg magaalaynu nahay isku muxuu ahaayey jihaynu yani waxyaabo badan baa muxuu la isku soo dhaweynaya soomaalinima la isku soo dhaweynaya kaliya
Soomaali nimo ayaa la isku soo dhaweynaya mujarrad Soomaali ma tahay waxa weeye ahlan sahlan fawqa ar-ras marka runtii dad saasa oo isku xiran baynuna marka wanaag baan kala kulmay wanaagaas ilaahay muxuu ahaa Soomaaliya ku dhameystiro wixii dhacay tagayna ilaahay ha ilowsiyo muslimiin badan baa dhexdooda dhibaato martay iyagana muxuu ahaa insha Allah ilaahay ha ka bugsiyo oo aan dareemayna in muxuu ahaa khaladaad ay isku sameeyeen waan dareemayna Soomaali runtii wixii halaagay dulmi ay barkeed marka kala soo gashay laakiin imika waxa weeye aynu ilowno oo dadkii runtii in badan oo kamid way ilaaween qaar baa isku dayay marka qaar kood inay maadiga dadka xasuusiyaan maadigaas waxa weeye islaam baynu nahay islaamnimaduna muxuu ahaa waxayna baraysaa inay dadku ay walaaloobaan oo leeylaawo wixii hore si mujtamac isku xidhan oo mutamaasika oo yani cadow kale ayuu leeyahay iska celiya cadowga kale ayaa loo carbiyaa muxuu ahaa mujtamaca muslimka marka Soomaali runtii yani wanaag badan baa kala kulmay soo dhaweyn baan kala kulmay goboniman kala kulmay xaqiiqatan goob kasta aan tagno waxa weeye nagu soo dhaweynayeen meelo badan baan noo haray oo runtii aanan wali booqan yani sabab badan ay jiraan oo aanan u booqan insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu booqano deegaamada kale haddii aynu jaleecno dhinaca suugaanta Cabdimaalig waa hal abuur wuxuuna suugaanta ku curiyaa luqadaha Soomaaliga iyo Carabiga goormee ayuu bilaabay oo dareemay inuu curin karo suugaanta waniyo waxaan anigu xasuustaa anigoo 20 sano ka soo wareegay xaqiiqatan markii aan bilaabay suugaan inaan qoro inaan maahay adabka qoro guud ahaan ama qisas ama ashcaar inaan qoro sheekooyin iyo gabayo bil Carabi baan ku qori jiray anoo Yemen jooga anuu ilaa iyo hadda ma aamisani inaan maahay bahda suugaanta kamid ahay laakiin waxaan islaamin huwa dadka jecel inay suugaanta qoraan ayaan isku tiriyaa marka waxa weeye markaasaan muxuu ahaa bilaabay barigaas ayaan muxuu ahaa bilaabay Carabi baan muxuu ahaa runtii uu ku bilaabmay ilaa ay imika Carabiga muxuu ahaa waan xiiseeyaa fursad baaban helay qatar inta jooga in muxuu ahaa dib wax u sameeyo waxaa jirta hees ku caan baxday Imeermeeri oo Cabdimaalig uu sameeyay haddaba maxay tahay qisada ka dambaysa heestaasi ee ay ku timid Imeermeeri waa heestan sameeyay oo bila musiga laxanka unaan saaray Imeermeeri waxay ka sheekeynaysaa qisad jacayl bay ka hadlaysaa qisada jacaylka ah oo muxuu ahaa ay meermeerintu ku badatay laablaabku ku batay oo soo noqnoqo soo soco waxaan dhamaanay madadaalis Imeermeeri bimaana waadi meermeerisay anigana Imeermeeri wuxuu leeyahay yani waadi meermeerisay anigana waadi madadaalis markasta ma saasadi ma welisay oo bimaana waxba kaamana soo naasacada oo ay dhabi yani wax dhawa ma jirto marka runtii qissa muxuu ahaa ku timi qisadaasina waxay ahayd qissa runtii yani muxuu ahaa ereyadeeda laga akhrisanay xaalkeeda marka waa heesta aad maqasheen ee ahayd anigana Imeermeeri waliga imadadaali markastaba imaaweli waxamankayga buuxa maskaxdayda miranaya murugada jacaylkaaga malmaha adduunkeenu waa miradha tira kooban marun soo dhammaanaya madmalmo ilaa joogtid midhahayga la xamaysad ha noqdaan macaan heese Imeermeeri intaas ma ka soo qaadanaya dad badan ayaa Cabdimaalig ku dhaliila inuu ka soo horjeedo Somaliland oo deegaan ahaan uu ka soo jeedo iyadoona horay uu suugaan kala duwan ugu amaanay haddaba muxuu yahay mowqifkiisa ku aadan arrinta Somaliland runtii Somaliland iyo dhul Soomaaliyeed iyo cid Soomaali ah oo aan duulaan ku ahay ma jirto kaliya anigu waxaan ka soo horjeedaa dadka dulmiga geysanaya ee dadkooda laynaya ee faragelinaya Soomaalida kale waxaan ka soo horjeedaa Cabdi Ilay iyo kooxdiisa kuwan ka soo horjeeda waa kuwan u jeedana waa kuwa iyo cid kasta oo la shaqeysa qof kasta oo la shaqeeya oo Soomaaliya oo aan dareemayn inuu la shaqeynayo laakiin ka dawlad ahaan ka shacab ahaan Somaliland ma runtii kama soo horjeedo nin dulmiga diidan u baahan dulmiga nacab yani waxa weeye gobonimada jecel حقيقة قفك السوماليلاند runtii ka soo horjeeda yani wuxuu dayn lahaa
muu yidhaahdeen baa dhibtaasaa somalilan kusoo socotay ha laga qabto muu yidhaahdeen waxa weeye wuu aamusi lahaa oo yani shirqoollada aan ka sheekeeyo loo maleegaya baan muxuu ahay ka aamusi lahaa ka dhici lahaa odhan lahaa muxuu ahay yani ha wareegta garaantu muxuu ahay habarba iska hawle heellada inoo tuma ayaan odhan lahaa waxa weeye يعني محوها كلا بروجا كلا بررع حاجة دونتان بنرلا لكن حقيقة سومالان يعني أريم بدنا رنتي يعني كنت هجير إن هي شرطة ما قرني سومال السودان وقصة هو كذي كرا يعني ديجان كيجي دول كيجي يعني أنت أساسا إنه أنت شوي كبر باري يعني وحكون نقضي أنا ما قرني يقفكوا يعني ماشي وان كجوري لها بنهائيا أنت كجوري يعني ملك اللي تجي لها مركزان يعني أنا هلكها إن واحد دونا كشو سمينها لكن meel aanan ka guurin oo aanan ka goosgoosan oo aanan kaba tagin ma garanayo waxaan uga soo horjeedayo يعني teeda labaadna muxuu ahaa Axmedow yani xukuumadaha kala duwan ee imanaya waan dhaleeli kara sida ay shacabku dhaleen muwaadin baan ahay reer Somaliland xaq waxaan leeyahay xuquuqda ay leeyihiin muwaadiniintu way dhaleelaan oo si fool xun baad arkaysaa warbaahintu caayaysa madaxda oo anigu sidan qaabkan qaawanba يعني وما عايتمه ظلمي هلا دايو أيان هذا يعني فرقلت أنا لك دايو بين هذا لكن قابك أو قاونا حتى لو عايتمه حقيقة أنا نقول ما عايتمه وحن كم بده هاي موادرين تاس وحن لا هاي حقوق ده وحن سيدا أي وحول دليل يا بنا أنا أقول دليل يا أو حكومة دو وهو وموظفين وشغالة يعني محها الله دورتي هاوش هسا الله إجمضي كلية يعني وانا تجيان إيجا سومالان لما يراد هذا إيجا كسر تيدو إيجا سومالان معها سومالان إيجا معها وحوي هناك فرق وحوي حكومة ذاك الدوام بتجي سومالان ويتشوكتي مركها وحوي وحن شعلها تشريتان كذا وحن شعلها هرمر كذا وحن شعلها إني وحن نقطة يعني رنتي وحابة نسميه السوقان بنسميه هسان نسميه تقارير بنسميه عن كبري عالم كسومالان رنتي يعني وحن واركيا ظلمي ما واركيا حقيقة لا يقول هذا سومالان بعد كسر كذا حد جذبان حقيقة واركا ظلمي وين أي هدي أي للرميستو هدي اللي يقول لك وحوي ظلمي ما واركا وحن لا هاي ودن كيجا حوق بان حيل دوتش علاي ليجا محك سنة حشربان أقوبيا أيان هراوري وحا سمينيا دعاية داس نمن كانوا سهيني أحمد حقيقة وحوي إير هدان كم قناة السوماليلان والله سي أن عادي هم بانو وحي صودا وماشا أن وقوتش علاي إن كنا ولاده إلهينا وياركا إن نشعلها إلهينا وياركا إن أنا نحن كسر كذا شعب كي رئيس سوماليلان وحنا دلنا ودي نشعلها آديات باندين نشعلها إردجيست كلن نكحل الدوّن وين دلنا يالنا ووضع فريسانينا وحياة بدن بانرنتي إذن تصيا إن نحن سوماليلان أنا نعبين وحن إذن حسوسين يا برنامج كلامي كون يعني ضدك أنا جاي له أركيسانة ما يلحق قيل سوماليلان مع عبد الملك كسر كذا وما يقبن أو ما يكمل شقين وحيابه أنا قبلني أنا جاي أصحاب تيدا عيابي ضدك كلا دوانا يعني نوفذ إنه جرمتك يعني ضد إنه جمدا أو يعني لقيا أبا قف كان يقول لي اللي سوماليلان عدو جاي ذا تاي حلقيا أبا ضدك أنا كلميني يعني ومدة وصبرني جريها لورسي قلنا ذا لو سمي إن المادة هذا هاي إلهي كبق ضدك أجيبن هاي أنا جرب استاجني وحوي رنتي وحن دريمي إن لا يظلمنا يا والله marka la yiraahdo Soomaaliland baad ka soo horjeedaa ya akhi waxa way aragti siyaasadeed ma leeyahay laakiin kama soo horjeedo Axmed ugu dambeyn Cabdi Malik oo kamid ah bulshada Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ma jira qorshe ku aadan inuu qabto xil siyaasadeed muxuu yahay hamigiisu wallahi waxaan anigu culayska saaray mid baan saaray waxaan isiri wax bedelka ninba meel wax ku bedela Soomaa نين وحنا كبدلا مركم قبته حل قبته أيوة حوان بدلية نين وحوي حق الدعوة دينته وداعية نغني حوان بدلية أنا جو وحوي وحنا سري وناجي واحد هذا يكسر حقي وربعينت مركا إسبدل كي وحن علايس كساري إن وحكو بدلا وربعينت إن وحكوها جاتي وربعينت مركا رنتي طمع سياسة ده يعني مرحلة دنا نشوف رنتي يقوم يجرب ما كل شيء والله فرصة بدن بان هلا أنا أودي كريا إن مالك الدوان إن حل كقبته حقيقة يعني وحوي ضد بدن بانو يسولواني أو أودي كريا إن هو هاي ماشي عن شعلها هنا يجيان إن صوبته هذا الدال مركز تكون بحسود هليسة وحياة بدن فرص بدن بان هلا
dad badan baanu isbarannay dad badan baanu isu dhowaanay waxaan awoodi karayaa inaan xilal qabto laakiin xaqiiqatan muu hayn hamigaygu hami xil inaan qabto sababtoo ah waxa weeye waxaan u arkay anigu inaan halkaa joogo warbaahinta ummadda kala hadlo ummadda ku hanuuniyo wixii wanaagsan aan halkaa kala hadlo fursadaan kala hadlo oo waxaaban dareemayaa in haddaan xil qabto inaan koomayo meel ku koomayo waa meel inaan ku koomayo xaqiiqatan xitaa mar baa soo ifbaxday yani waxa weeye xil baa loo magacaabaya intaan muqdisho joogay yani xaqiiqatan وفي عنتها إن حلا قبته وحلك عيب معها وكرامه إن لقوا ماموسه وأمد الصوماليات حلا وقبتين لكن أنا كشغادة يضمها وحنوارك إن أنا هلكا إن أنا قبنا أو أن صومالي ودن معها وحقبته حقيقة يعني مدنا وحندوني رئيس صومالي لما دوني نفسي مركن ليه صومالي بنحوق قبنا إيديك كم سورتي بمعنى إيدين كمان إيدين قبنية صومالي كلام قبنية تدتكي وحوي وحلوبة هي أشخاص يعني ضدك كذا حيسوي له بعين سيد اختارك إنه ضدك كنا ندويه كهالك شو أنا كحاجة نسوي دويه عيارتوي وكنا لا صعيار كنا صعيار أبوانك حاجة ني حاجة تجا يا كوه هي سوا كوه حاجة ني حاجة تجا مركا وحلو بعين وريال هي شخصيات أي ضدكم حنوها إلهامينية أي ضدكم أي هيستضد تاجرسن وحاجة ني حاجة بدي تاجر كيلية لكن أنا ما أقول أكو حرنين waxaan jeclahay Soomaaliya oo dhan inaan muhaay u tago inaan Soomaaliya oo dhan la joogo yani runtii xil ma doonayo inaan meel ka qabto xilkayga waxa weeye waa magacaaban yahay waa barnaamijka warbaahineed ee aan ka shaqeeyo intaas ayaan ku soo afmeerayaa waraysi kooban oo aan la yeeshay Samafale Cabdimaalik Coldoon waxaan idiin soo jeedinayay anigoo Axmed Abdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwiisha waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadeydii qaybta ka ahaa barnaamijka inuu qabsoomo ee Cabdiweli عبد السمد يا عبد الرشيد تاني كلنتي دنبي نبت كلي